Cabdullaahi Ciise Baashane xidigii hore ee kooxaha SITT Daalo iyo Elman ayaa haatan waqti fiican la qaadanaya kooxda kubadda cagta Horseed. Muddo hal sano kadib ayuu ku soo laabtay kooxda kadib dhaawac qanjirka ka soo gaaray. Xidigan ayaa Horseed maalmihii dambe la qaadanayay tababarka joogtada. Astaan ayuu maanta ugu warbixiyey soo laabashadiisa iyo sida uu kooxda ula jaan qaadayo. U dhowahay Astaan TV waan salaamay adigaba. Soo laabashadeeda hadda waa ma sha Allah aad u fiicanahay. Badan garoomada ka maqnaa adiga hadda dhaawac waxaan ku maqnaa muddo sanad iyo baro kala ah. Awalna uu safaray waxaan jiray marka alxamdulillah tama ahay. Wallahi meeshaan uga soo gaaray oo istiraab xun ay gashay marka alxamdulillah hadda waa ka fiicanahay. Ma sha Allah boqolkiiba 90 waa fiicanahay. والله جولان رجينا هذا بقولان حوالي كوح والبا وحوي ديار جروبي ذا بقوله مركا جولان رجينا إن شاء الله بلا دورته. معانيك كوحدة كوبادة عاقتة رسيد عبد الجون أيا سود بيحد جنسو الله بشديس السجوا شيء إن لا ديارنا يترتمد كسو فور له كوحدة كوبادة عاقتة رسيد. وعيرتوي في أنا ويارجع أنا عياري جرى كوحة وطن وين رنتين وسول معناه هرسيد كترسن وها haddana tababarka uu soo noqday waana diyaar garowgiisana oo wada hadii la yiraahdo wallahi insha Allah wax badan oo ku soo fasaacidi kara maadaama uu ciyaartooy way araga wax badan oo ku soo kordhi kara kooxda hadii uu caafimaad taam oo helo insha Allah. Cabdullaahi Ciise Baashane oo loo yaqaan John ayaa waqti fiican la soo qaatay waayihii Elman xilliga uu macalinka ahaa Yuusuf Calnooriyo Cali isagoo hal horyaal hal Super Cup la qaaday sanadka 2012.